تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عشركان عشركي صدن إيا سقالادو وحونا كميدها عشر ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم
أفر طبعا آيات بوككما آيات بقولات بوك باللابنا يا كنمذا من سورة النساء آيات بقول طبعا يسدحاتنا وكوي من السورة نفسها درسي هوري أيو كحرير سنيهي waxaa darsigii hore aayaadkii ugu dambeeyey aynu ku sheegnay qofka mu'minkaa mawqifkiisu nolosha adduunka uu ku nool yahay wixii loo abuuray ee jiritaankiisaba sabab u ahaa cibaadatullaahi waxdahu bimaa sharaca bay ahayd cibaadadii darteed loo abuuray inuu si habsan u guto hadday u suurageli weydo inuu dagaalamo iyo inuu ka hajiro meesha ka tago labadaa wadaa xalaala waxaa saddexaysaa mustadcaf intuu noqdo dulli iyo darxumo inuu ku raali noqdo kaana inuu ahlu naar yahay ayaynu sheegnay kolkaas hijiradii ayaa laga hadlayo warkeeda noo soconayay qaala tacaala rabbi wuxuu yihi waman ruux yuhaajir ka taga wadankiisa ugana tagaa fii sabiilillah dan kale ma aha hadduu tijaari iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo shaqo iyo siyaasi iyo danaha la tamashlaynaya qushigiisa laakiin sababka wadankiisii ka waday waa inay ahaato fii sabiilillah ilaah diintiisa koryeelideeda daraaddeed qofka wadankiisa kala taga ilaah baa yabohan iskale yajid wuxuu heli doonaa fil ardi dhulka eebbaweyne gudihiisa muraaqaman meelo cadowgiisi uu ka ciilo kalimatu muraaqam sambooreyn wey kolkaa qoladii ku cadaadinaysay ee ku dhibaysay meelaad ku ciisho oo iyagana dhibaatadoodii aada uga badbaado adigana cibaadadaadii aada ugu madax banaanaato kolkay kaa maqlaan adoo dhaqan oo sharaf iyo qiimi leh ay iyagii ciil iyo caro u baktiyaan baad dhulka eeba ka helaysa yabo min allahi caza wajalla meelahaas uu ku cadowgiisii ku ciilayo oo kasiiran weliba fara badan meelo yar ma aha muraaqaman meelo cadowgiisii uu ku ciilo kasiiran fara badan ayuu dhulka eeba ka helayaa waa xag dhul ahaan xaggii dheef ahaan haddii dadkiisii iyo dalkiisii iyo dunyadiisii iyo shaqadiisii uu ka tegay oo baahiyo waxa uu ka baqayana wasaacatan fi risq xaggii cuntadana wuxuu helayaa cunto waasaca hadduusan gaarin meeshii iyada ahay oo waa haajiray mu'minkii waa aqal qaado waa dhaqaaqo gurigii waa ka baxay hijruu ku talagalay meelihii marka uu socday isagoon gaarin hadduu rabo markuu catabada ka tegay albaabkiisuu ku bakti sababu nuzuul bay lahayd oo wadaad saxaabi ah ayaa markii hijradii iyo isdhaafkii ayadii hore lagu akriyey yuu yihi fadhi ima yahay wayen tacbaana waaye sakaraad dhuntaa laga taabanayo wiilal u dhan u yeeray duca haddaad doonaysaan qaada buu yihi garbaha laga galay qoryaa loo sameeyey intaan toban tilaab la qaadinba waa iska nafbaxay hadduu nafbaxay tacliiq bay gaaladii ku sameeyeen waxay yidhahdeen carruurtiina waa kaga xanjaq siiyey dhulkiisiina waa ka tegay meel lama gaarin qaala tacaala rabbi wuxuu yihi waman yakruj qofka ka baxa min beytihi aqalkiisa meel kaleba yuusan gaarin catabaduu taagan yahay aqalkii gudihiisii buu ka baxay muhaajiran isagoo u canjeelay ilallaahi eebe iyo wa rasuulihi uma markuu aqalka ka baxay ka gadaal isagoon meel kala gaarin yudrikhu uu haleelay almawtu geeri faqad waqaca ajruhu kaamilan cala allahi caza wajal waxaa la siinayaa kuwii haajiray ee cawo dhaxay ee galab caraabay ee suul dhawyooday ee 450 masaafo gooyey ee madiine tegay ee dhibaato kulligeed ku dhacday intay heleen yuu kana helay wasadaqa rasuulu sala allahu alayhi wasalama fi qawlihi inama alacmaalu binniyat wainama likulli imri'in ma nawa qofka wixii uu niyoodu leeyahay ninkan hijru niyooday waana aqal qaaday ajrigiisa waa buuxaa waxaa la ajrigiisa eebbaweyne korkiisa u ahaaday axad kale laa malaa'ig walaa makhluuq walaa cid loo wakaalan ma jirto faqad waxaa dhaba waqaca ajruhu abaalgudkiisi inuu ku dhacay cala allahi eebbaweyne korkii hijrada qiimigeeda marka waxaa kamid a alhijratu tahdimu maa qablaha qofkaan muhaajirkaa hijrada ka hor wixii gafe u galay
hijrada baabi'inaysa marka hijrada iyo islaamka iyo tawbada iyo xajka iyo isku mida acmaasha qofka sameeya dembigiisii hore waa la dhaafayaa sidaa daraaddeed baa ilaah aayadii wuxuu ku khatimay wa kaana allahu gafuuran raxiima qof muhaajira ilaah waxba uma haysto dembi wixii uu lahaa ilaah waa gafuur hijradii baa lagu dhaafay waana loo naxariisanayo waman ruuxa yuhaajir tagaa waddankiisii buu ka tagay oo mu'miniinta kortii la qiimeynayay qoladii maka ka tagtay rasuulka raacday ee muhaajiriin ahayd ayaa qoladii koobayd noqotay waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar kolkaa muhaajiriinta qoladii koobayd noqotay hay-adii kalena lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim idan muhaajiriintii ummadan qolada ugu qiimi badan almuhaajiruun qolada xigtaana alansaar qolada xigtaana waladiina tabacuuhum biixsaan waman yuhaajir qofka taga fii sabiilillah ilaa diintiisa koryeelideeda darteed yajid waa helayaa fil ardi dhulka gudihiisa muraaqaman meeluu cadow ku ciiluu helayaa kahiiran fara badan iyo wasacatan fi risqi inuu raashin iyo nabadgelyo iyo degmiya cuntada helo waman ruuxa yakruj baxaa min beytihi aqalka uu ku nool yahay niyadii uga baxay waa maxay muhaajiran isagoo haajiray oo socoteeyey ilallahi eebbaweyne xaggi iyo wa rasuulihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dartood la haajiray uma ka gadaal yudrikhu uu haleelo almawta geeri dhinta faqad waxaa dhaba waqaca ajruhu in abaalgudkiisii ku dhacay cala allahi eebbaweyne korkii wa kaana allahu ilaah wuxuu noqday wamaa zaal ila alaanna uu yahay dibna uu ahaanaya gafuuran lilmuhaajiri wataa'ib qofka hijrooda iyo qofka gababku galay ka toobadkeena labadaba mid u dhaafa raxiiman bilmu'miniin dadkii eebba adduunka ku rumeeyey ee ku raacay ilaa u naxariis badan buu noqday waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun laba arrimood oo fiqhi ah ayaa iska daba imanaysa midaan hore waa salaadii rubaaciyada ahay ee la gaabinayay qofka muslim hadduu yahay oo uu safro waddankiisii ka tago kolkaa dhibaata qofkii ku dhacaysa wasafaru qidcatu min annaar safarkuna dhibaato miiran wey kolkaasaa diintii takfiif samaysay oo salaadii rubaaciyada ahay duhurkii iyo casarkii iyo cishihii laba ragcad baa laga reebay laba ragcadna waa laga cafiyey waxaa kaloo loo baneeyey jamci waxa la yihaah marka gurigii uu joogay 24 saac 5 goor baa salaad laga rabay laakiin labaa laga tuuray kolkuu socoto yahay fajarkii mar buu tukanaya casarkii iyo duhurkii isku mar buu tukanaya maqribkii iyo cishihii isku mar buu tukanaya hadday salaadu kaamil tahay oy 17 ragcadood ahay 12 buu tukanaya 5 goor hadduu tukan jirayna 3 goor buu tukanaya takfiifaaskay diinta muslimka u samaysay qofka markuu socoto yahay bishardi waa in socotonimadiisu xalaalta qof halaaga lama rabo caasi dhuuntay lama rabo waxaa la rabaa qof muslima safarkiisa ama cibaadaha noqdo kaalxaji waalcumra wa ziyaarati alwaalideyn ama safar mubaaxa tijaaro iyo waxaasuu wataa safar xalaala la doonaya qaala tacaala rabbi wuxuu yihi waidaa darabtum haddaad safartaan ayuha almuslimuun fi lardi dhulka gudihiisa ku safartaan falaysa ma aha calaykum dushiina junaaxun dembi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati tabciidiyow salaadii subax la gaabin maayo awal baa alla gaabiyey maqribkii la gaabin maayo awal baa alla gaabiyey mintan waa tabciidiya min bacdi salaa alrubaaciya waa duhurkii casarkii cishi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaa salaadii aada gaabisaan ku dambaabi maysaan in khiftum haddaad cabsataan ay tana la jirto an yaftinakum inay idin baleeyaan aladiina waxa kafaruu gaaloobay in khiftum an yaftinakum aladiina qasru salaa salaada la gaabinaya gaala ka baqdid u shardi maaha ee khaalibkii unbaa la xusay oo in waagaasi colaadii jirtay oo muslimkuna dad yar oo kooban ahaa dhan walbana gaalada ka jirtay cadowna ay ku ahaayeen ayuunbay aayadda tilmaantay
wailaa cabsi wayayan jirin mar haddaad musaafir tahay waxay diinta kuu banaysay inaad salaadii gaabisid. safarkaas masaafaadkiisa fuqahadu mudday sheegeen 4 minqaad, macnaa 4 geedi 48 mayl oo carabi ah, ama intaa bedelkeeda oo kilomitiraada, waxaasay fuqahada sheegeen. laakiin qur-aanku masaafo ma sheegin. wixii safar ku rumoobayo dhan meesha way iska imanaya. haddii safarkaagu siyaxa yahayna lacag intay kaa badatay yaa dayuurad booskeedii hore ijaaratay tamashaad ku jirtaa, maca daalika salaadii waad gaabinaysa. maxaa jira musaafir baa tahay. dayuuradaasi raaxada loo fuulay cabaar markay kula socoto jidde iyo xamar inta udhaxaysa muddo gafana 3 saac iyo wax la jiray ku jirtaa, adigoo burburaad imaanaysa. marka safar dhibaataysi waa leeyi. madaarkaad kasoo raacaysay mashaqada kugu qabsanaysa iyo madaarkanaad ku degtay midda kugu qabsanaysa iyo joog jiciirka iyo minjasuuxa gambarka kugu qabanaysa, safar dhibkiisa waa qabaa. tamashliya raaxa hadduu yahay ood saaruuq raacdid iska daa markab iyo doon iyo baabuur, salaadii waa gaabinaysa. waxaa taraaraxay alxanafiya wafaqahumullah, waxay yidhaahdeen musaafirka salaada inuu gaabiyaa waa waajib. waxay daliishadeen adila qawiya laba ugu culculus. midi xadiid fii saxiixi muslim ku sugan umuna caaisha radia allahu canha ay warisay, waxay tihi furidat isalaatu rakcatayn. sideeda salaada markii ilaahay waajibinayay ay samada ka imaanaysay ayba 2 ragcad ahayd, fa utimad waxaa la dhamaystiroo 2 lagu daray salaatu lxadar qofka gurigiisa jooga, wa uqirat salaatu safar. asalnimadii waxaa waafaqsan gaabinta. rawaahu muslim. aslulfardiya marka waajibidii hore salaada la waajibiyey gaabida waafaqsan. waa daliil qawiya wa aqwa minhu, kaas waxaa ka xoog badan ficlu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama. weligii suubanaha oo socotaa salaad ma dhamaystirin abidkiis yaaligi. wuxuuna safray taqriib 10 mara. madiine hadduu tegay ayadaana ay soo degtay 4 goor waa cumraysay suubanaha madiina uu ka tegay, marna waa xajiyey. 7 jihaadna abaanduulu ah, 7 duulaan oy beder kamid tahay oo yuxid kamid tahay, fatxu maka iyo hawaazin iyo tabuuk. 7 duulaanas abaanduulo ah iyo 4 u cumraysay iyo mar uu xajiyey. weligiis ma dhamaystir. ma ku yimid markaa ciidamadii kasoo raacay madiina iyo reer makaa ku xirtay 2 ragcad markuu tukaday buu yihi atimuu salaatakum yaa qowm fa inanaa qawmun sufur. socotaan nahay annaga dhamaystirta. reer makuu ku yihi kolkuu 2 tujiyey, 2dii kale la yimaadeen. kolkaasuu banaha weligiis alihiis salaad isagoo socotaa ma dhamaystirin, waa gaaban jiray. kolka aslulfardiya iyo ficlu rasuulillahi bay daliishadeen, waa waajib bay yidhahdeen. waxaa lagu xujeeyey markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu salaada waajibkeedii ka hadlayay oo nin carab oo reer baadiya, maadaa calaya min asalaati ya rasuul allah, maxaa la iga rabaa? suubanaha wuxuu ugu jawaabay 5 salawaatin fi kuli yawmin walayla. acraabigii baa su-aashii labeeyey, hal calaya gayruha, ma wax kalaa la iga rabaa? laa ilaa an tatawac, haddaad khayr badsanaysa ma ahaane wax kale lagama rabo. idan lama sheegin 5 waqti waxaan ahayn, lama sheegin. taasaa loo hayaa. aayadana qolaa tiri waa rukso salaada gaabinteeda, waa wax qofkii u baahanna loo baneeyey, laakiin dhamaystiridaa ka fiican. aayadda daahirkeeda ay ka qaateen. waxaa la yihi falaysa calaykum jinaaxun, ku dambaabi maysaan an taqsuruu min asalaat, ku dambaabi maysaan ba haddii la yihi in la dhamaystiraa ka fiican. idan salaadii dhamaystirideeda iyo gaabinteeda dhamaystiridaa fiican. gaabintana waa rukso. qolaa daliishatay, qoladaasna waxaan ku xujaynaynaa nabigii aayadan lagu dejiyaa idinka yaqaan, weligiisna ma dhamaystirin. idan ninka musaafirka ah inuu qaato ruksada eebe oo salaadii gaabiya u fadli badan. taas waa safarkii. salaatulkhoofkiina waa iman doonaa isagana. waidaa darabtum haddaad safartaan fi lardi
dhulka gudihiisa falaysa maaha calaykum korkiina junaaxun dembi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaa min bacdi salaa wahiya rubaaciya tii afar tahay in kiftum haddaad ka cabsanaysaan an yaftinakum inay idin beleeyaan aladiina waxa kaafaruu galoobay intii gaalowday wain lam takaafu haddaydaan ka cabsanayninna mar haddaad musaafir tihiin kabin baa la idin baneeyey ina alkaafiriina gaalada kaanuu waxay noqdeen lakum idinka mu'miniinta caduwan col ay mubiinan colnimadooda caddahay ina alkaafiriina gaalada kaanuu waxay noqdeen gaalo lakum idinka caduwan col ay mubiinan colnimadoodu caddahay waidaa kunta fiihim salaatulqofkii waa kan jihaad baa la galay marka jihaadku laba arrimood buu kulansaday labaduu kulansaday waxa wey mid waa safarnimadii midna waa khatarnimo oo naftaadii baa khatar ku jirta ama waxbaad dilaysaa ama waa lagu dilaya idan kolkuu labadaa shida kulansaday ruksadii waa naloo sii badiyey ilaa qibladiina laga cafiyey rukuucdiina laga cafiyey sujuuddiina laga cafiyey awal waxaan taagnayn in ragcadihiina qaarna laga dhimay oo 6 ragcadood 2 duhur laga reebay 2 casar laga reebay 2 cisho laga reebay 6 ragcadood ina laga dhimay waktigiina naloo wafiro naloo ururiyey oo markaan 5 goor tukan lahayn 2 goorna la sii daayey oo 3 goor base tukanayn salaatulqofkii waxaa lagu daray qibladiyaa lagaa cafiyey rukuucdiyaa lagaa cafiyey sujuudi baa lagaa cafiyey laakiin salaatulqofka xaalado badan buu leeyahay sababta dagaalka ayaa marba si ah mar gacantaa layskula jiraa oo xinjirtaa daadanaysa marna goolibaar iyo dhowlatus baa la ayaa tafaxay dagaal ma socdo xaggana gaaladii baa tuban xaggana muslimkii baa tuban waa la isu jimatuuraya markay saas oo kale tahay salaadii toos baa loo tukanaya waxaa kaloo haddana duruufta ku darmaysa dhankii qiblada hadday naga jiraan ilaalintii aynu lafeena ilaalinaynay iyo salaadii baynu isku wadan karnaa oo waa wadagelaynaa laakiin hadday xagga qiblada dhan kale naga maraan way isqaybinaynaa qaarna hortooday taagnaanayaan qaarna waa tukanayaan kuwa tukanaya iyo kuwa hortaaganna qoryuhu waa cabaysnaanayaan dhegtun baa la xiraya garabkaa lagu wadanayo kolka waatayun idi mu'minka waa inuu urursan yahay oo fidhoon yahay oo yahay nin naf leh waa inuu hadaw kolkaas yaalahaas badan baa loo tukanaya sunnadana aad bay u bayaanisay ayadiina waatana qaala tacaala rabbi wuxuu yihi waidaa kunta ayuha arasuulu lkarim kalimatu kunta waxaa la xusay sidii khaalibka ahay oo ilaa suubanaha kuma xirna salaadan qofka gaabinteeda hadduusan isaga joogin oo intuu noolaaba markuu asxaabta baanduula ka dhigo waa la samayn jiray wa bacda wafaatihi calayhi salaatu wasalaamna waa la samaynaya waidaa kunta haddaad ahaatid fiihi muslimiinta oo fa aqamta aada joojisid lahum muslimiinta assalaa salaadii haddaad u joojisid waa la isqaybinaya faltaquma joogsato daa'ifatun qeyb muslimiinta kamida minhum min almuslimiina kamida macaka adiga la jiridaada waliya'khuduu ha qaateen kuwaan kula jira naftooda aslixatuhum hubkoodii waxay hub wateen aslixadoodii waa qaadanayaan waliya'khuduu ha qaateen aslixatahum hubkay wateen fa idaa sajaduu marka ay sujuudaan kolkaa indhihii hoos bay aadeen cadowgii looma jeedo falyakunuu qoladii kale ha noqdeeno min waraa'ikum gadaashiina walta'ti ha timaado daa'ifatun koox ukhraa kale an lam yusalluu tukan falyusalluu ha tukadeen macaka adiga macaaga ragcadda labaad ha kula tukadeen waliya'khuduu ha qaateen xidrahum dadaalkooda wa aslixatahum hubkooda limaada yaa rab wadda aladiina wixii waxay jecel yihiin kafaruu gaaloobay low goor atakfuluuna halmaantaan can aslixatikum hubkiina inaad ka tagtaan bay gaalada jecel yihiin iyo wa amticatikum qalabkaad wadataan oy fa yamiiluuna rogaal celiyaan gaalada calaykum korkiina maylatan rogaal celin waaxidatin mid hal intuuf intay idinka helaan ood hubka dhaaftaan ood 9 salaad iyo wax ku mashquushaan inay mar keliyeeta weerar butaaca idinku qaadaan oo kolkaa idin beleeyaan bay gaalada jecel yihiin kolkaa jaanis yaan la siinin walaa junaaxa dembi calaykum korkiina maaha in kaana hadduu yahay bikum adinka adan dhib min matarin rooba
haddii roob idinku da-ayo aw kuntum haddaad ahaataan mardaa kuwa xanuunsanaya ciidamada ninkii kamida ee qandhan an tadlacuu dhulka inaad iska dhigtaan aslixatakum hubkiina waa lilcudur ama roob baa da-aya oo kolkaa roobka uma roona hubkii iyo rasaas iyo xabadii ama nin baa xanuunsanaya ciidamada kamida dhulka inuu kaasi dhigo diinta wax kama qabto haddana calaa kulli xaal wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata in allaha eebe acadda wuu diyaariyey lilkaafiriin inta xaqa diidee gaalowday cadaaba naar buu u diyaariyey cadaabkaasoo muhiinan sharafta ka qaadow fa idaa qadaytum haddaad gudataan asalaa haddaad salaadii gudataan fadkurullaha eeba xusa oo xusida eeba la xusaayo bitahliili watakbiiri watasbiixi wataxmiidi watamjiidi lagu xusaayo iyadu meel lagu shardi ma aha fadkurullaha eeba xusa qiyaaman idinkoo taagtaagan iyo waqucuudan idinkoo fafadhiya wacalaa junuubikum dhinaciina korkiina idinkoo ujiifa kolkaa fadkurullaha fi kulli xaalin basharka saddexdan sifo unbuu mid yahay qofka ama waa taagan yahay ama waa fadhiya ama waa jiifa wax udhexeeya lama arko kolka saddexdii xaalo ee basharkuu laazimi jiray carabka haddii lagu dhuftay macnahay ujeedaa waxa wey daa'iman wa abadan inaad noqoto rabbigiis nin xusaaya oo carabka ku haya fa ida dma'nantum haddaad xasishaan oo dagaal uusan jirin fa aqiimuu salaata salaada markaa waa la toosinaya oo sidii awal la yeeli maayo ragcadaheediina loo dhamaystiro istiqbaalu lqibla bikhushuucin wa aadaabin wa rukuucin wa sujuudin wa tumaaniinatin ayaa loo tukanaya sababtuna waxa wey ina asalaa salaada kaanad waxay noqotay cala almu'miniin dadka eeba rumeeyey korkooda kitaaban mid lagu dhigay oo waajiba haddana mawquutan mid la waqtiyeeyey oo salaada ilaah baa kugu waajibiyey waktigaa tukana rabbi baa magacaabay in fajarka la tukado duhurkana la tukado casarkana la tukado maqribkana la tukado cishahana la tukado oo shantan gooree la tukana ilaaha magacaabay wasadaqa allahu fii qawlihi fasubxaana allah xiina tumsuun wa xiina tusbixuun walahu alxamdu fi samaawaati waalardi wacashiyan wa xiina tudhiruun kama qaala caza min qaa'il aqimi salaata liduluuki shamsi duhurki ilaa gasaqi lleyl wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda idan waktigana ilaah baa magacaabay salaadana ilaah baa waajibiyey kolkaas suuragal ma aha inaad salaad waktigeedii ka qaado biduuni cudrin sharciy oo aad tidhaahid duhurkaan mashquulaan ahay hadhow casarkaan tukan doonaa idan markaa duhurka waktigiisii ka qaaday midka casarka aad tukan doonto kii lagu diray maaha kii ilaahay maaha kii ilaahay waktigiisii wey keliyata cudur daar salaad looga tegi doonaa jirta waa afar cudurdaarka laa khaamisa laha wax saneeya lama arko laba fiqigaad kusoo aragteen annawmu waannisyaan hurdo aday naftaadii maqan tahay oo salaad subax qoracdii ay soo baxday duhurkii hurdo ku dhaafisay waa cudurdaar maxaa yeelay hurdada waa akhulmowt waa cudur qahri ah oo samada ka yimid mar badan baad hurdo rabtaa ku iman mayso maradan rabin ood xoogsan lahaydna madaxaad qaadi waaye idan hadday hurdo timaado cudurdaar baad leedahay ta kale waa halma mashquul baad ahayd bashar baad ahayd saad u dabagadoomaysay inaad tukataad moodeysay goor danbaad madaxa taabatay oo tiri duhurkii maanta ma tukay iyadana halmaan markay tahay waa cudur jabri ah oo samaawi ah oo minallaahi ka yimid dembi kuma lihi annawm waannisyaan waxaa weheliya aljamcu waalikraah socoto haddaad tahay ood casarkiina duhurkii ku darayso maqribkiina cishihii ku darayso inaadan duhurkii tukanin waa cudurdaar maqbuula jamaca alikraahu cadow baa gacanta ku geliyey geedaa lagugu xilay waa lagu xabisay amxaaraa ku heshay idan waktina lama socotin saad u tukatana male kolka suldadaas kaa weyn kuu timaado aljamcu waalikraahu wannawmu waannisyaan afartaana cudurdaara cudurdaar kale salaad mala waxaad ka garanaysaa meeshaan salaatulkhawfka
jihaad fii sabiilillahi lagu jiro jihaadna uu yahay dirwatulislaam islaamnimada fiideedii uu yahay aa laysu ogolaan lahaa in intii loo kaatado jihaadaa lagu jira hadhow qumaati loo tukado kolka 2 ragcad laga dhigay oo lagu yiri ama qibladii wax u burso ama qiblo la-aan sallaa kayfa amkana adigoo dhiig leh oo xinjiro faraha ku wata aad tukanaysaa lagu bursanaa waxdila markaas ma ahaan lahayno in loo kaadiyo idan inaan jamaaca la fudaysan karin jamaacada salaadna waktigeeda laga qaadi jirin tanaa ku tusinaysa kolka ina salaata kaanat cala almu'miniin kitaaban mawquutan haddaad waktigeedii ka qaado salaadii eeba ma aha kolka markaad salaadii ka suga tagtay oo adoon cudurdaar lahayn duhurkii iyo maqribkii ku dhaafay iska saxayo adduunyadaada dhaqanaya hadhow baan tukanayaa waxaas wax lagu hadla ma gaf weynaad ku jirtaaye haddaad khamro cabta maxaad yeeli lahay waa toobad keeni lahay tanna toobaa laga rabo wa ilaa haddaad markaad rabta tukan karto markaad rabtana ka tegi karto ka tegidaba dembi maaha hidda wey salaad kas looga tago markaanan la baqayn oon ruuxan amuu ku dilaa ama ruuxan kama maarantide ka siyaara qaadatide gaalaa tahay hadhihi haddayan meesha ku jirin oo diinta toos loo wado rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man taraka salaata jahran faqad kafara jihaaran man taraka salaa faqad kafara jihaaran marna tilmaam iimaan dhaba iyo tawba nasuuxa ku furdaamin karte salaadii aan tukanaa waa bas maxaa tukani gaala bata kolka salaada inaan la saalanin waidaa kunta haddaad rasuul eeba u ahaato fiihi muslimiinta oo faaqamta aada joogsato lahum dadka asalaa faltaqum ha kacdo daa'ifatun qayb minhum mu'miniinta kamida macaka ha joogsato waliyaakhuduu ha qaateen aslixatahum hubkooda fa idaa sajaduu hadday wejiga dhulka dhigaan falyakunuu qaybtii labaad ha noqdeen min waraa'ikum gadaashiina kolka wejigiisa ha taagnaadeen kolkay qoladii hore ragcad tukadaan waltaati ha timaado daa'ifatun koox ukhraa kale an lam yusalluu ragcaddii hore wax ka tukan falyusalluu ha tukadeen macaka adiga rasuulkaa iyagaa dambana waliyaakhuduu ha qaateen xidrahum dadaalkooda wa aslixatahum hubkooda wada aladiina wixii waxay jecel yihiin kafaruu gaaloobay law takfuluuna inaad halmaantaan can aslixatikum hubkiina iyo wa amticatikum alaamtiina oo fa yamiiluuna ay idinku butaacaan calaykum korkiina maylatan waaxida mar keliya ay waarar idinku camimaan walaa jinaaxa dembi calaykum korkiina maaha in kaana hadduu ahaado bikum adinka qabidiina adan dhib min madarin rooba aw kuntum haddaad ahaataan mardaa kuwa xanuunsanaya an tadacuu inaad dhulka dhigtaan aslixatakum hubkiina wakhuduu qaata xidrakum dadaalkiina in allaha eebe acadda waa diyaariyey lilkaafiriinta xaqa diiday cadaaban cadaab muhiinan sharafta ka qaada fa idaa qadaytum haddaad gudataan asalaa salaadii haddaad gudataan fadkurullaha ilaahin ammaanoo xusa qiyaaman idinkoo taagtaagan waqucuudan idinkoo fafadhiya wa calaa junuubikum dhinaciina korkiisa fa ida adma'nantum haddaa xasishaan oo nabad gashaan oo colaadii jirin fa aqiimu salaa salaada toosiya sidii hore u tukada khushuuc ina salaata salaada kaanad waxay noqotay cala almu'miniin dadka eeba rumeeyey korkooda kitaaban maktuuban mid la dhigay mawquutan la cayinee waktigii la tukan lah walaa tahinu ha cabsoonina fi ibtiqaa'i ilqowm gaalada raatashadeeda ha ka cabsoonina oo ha daciifina hadday cilladu tahay xabad iyo waxbay wataan in takunuu haddaad tihiin idinka muslimiinta ta'lamuuna kuwa xanuunsanaya fa inahum gaaladuba birkuman qafila ya'lamuuna waa xanuunsanayaan kamaa sidii si lamida ata'lamuuna idinka u xanuunsanaysaan waxaad dheer tihiin watarjuuna waxaad ku daraynaysaan min allaahi eeba xaggii ka filaysaan maa wax ayan laa yarjuuna iyaga filayn dembi dhaaf iyo janno wakaana allahu eeba wuxuu noqday wamaa zaala ilalaana uusan ka zuulinas yahay dibna uu ahaanaya caliiman allah addoommadiisa u aqoon badan xakiiman maamul wanaagsan oo murtilow walaa tahinu ha daciifina fi ibtiqaa'i ilqowm gaalada raadsashadeeda ha ka daciifina
in takunuu haddaad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsanaya fa inahum gaaladuba ya'lamuuna waa xanuunsanayaan bashar wey kamaa sidii si lamida ata'lamuuna u xanuunsanaysaan oo geerida iyo dhaawaca iyo rafaadka way idinla wadaagaan gibil iyo bashar iyo isku dad baa tihiin taa waa ku siman tihiin waxaad dheer tihiin amalkan kale hadday dhintaan iyaga naar baa la geynayaa idinku haddaad dhimataan jannaad tegaysaan watarjuuna waxa aad filaysaan min allaahi eebbaweyne xaggi maa janna ayan laa yarjuuna gaalada quudaraynayn oo ayaan filaynin wa kaana allahu eebba wuxuu noqday caliiman bikhalqihi ilaah addoommadiisa u aqoon badan xakiiman fii maa dabarahu lahum siduu u maamulay alla ku murti iyo maamul wanaagsan inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaas ayadan laga bilaabay ilaa akhiri darsi silsila waaxida wey hal qisoo keliyeeta ayay ka sheekaynaysa qisadu waxaa wey nin munaafiqa oo ticma bnu ubayriq la yihaah ticma bnu ubayriq ayaa jiray waxaa u dheereyd munaafiqnimada tuug farihiisa kala xadu waxaa deris la ahaa nin qataade la yihaah kolkaasu wuxuu ka xaday cabuur wuxuu u geystay nin yahuuda oo yaziid ibni samiin la yihaah oo dukaan le beex mushara ayuu u geystay khamiiskii oo siri ihay waagaasi adduunyada heerka maanta ma ayan joogin budada la karsanayo muufaha laga dhiganayo iyo cabuurka iskubeelaa lagu ridi jiray habeenimuu khamiiska xaday budadiyaa lagu raad qaaday waxba ma ogeyn kolkaa budadii raadkeedii sidii loo hayay dukaankii yahuudiga ayay gashay haddii dukaankii yahuudiga la galo la baarbaarayna cabuurkiyaa laga helay haddii yahuudkii la yihi cabuurkan xaggeeskaaga yimid ticma bnu ubayriqa i keenu yiri ticma hadduu kashifmayna allah yalu yiri arrintii waa xumaatay kolka suubanahay gaartay suubanaha hadday gaartay gaaraa loo baxay ticmo walaalihii iyo qaraabadiisii munaafiqiin ay ahaayeen awanimaa gaar loo baxay waa la tashaday sidee ninkan ku furdaaminaa gacantaa laga goynayaa ticmo annagana meeshii waa ku ceeboobay sideen waxyeelaa waxaa la yihi kitaab jaamaca aan maro suubanaha aan u tagno annaga aan xogogaal iska dhigno ticmo annagaa naqaanin toosan weligiis wax ma cadin yahuudkaana awalaa naqaanay tuugu ahay kolka isagaa xaday cabuurka ticmana wuu hafraaya rasuulka cawanimo aan qancino ka gaarsiino suubanihii adduulaan lagu qaado waxaa la yaa rasuulallah ninkan ticmaha walaalihiis iyo qaraabadiis subuxuu dhashay ilaa saakan ag taagnay weligiis koob sii jeeda ma soo jeedin dhaaraa lagu kabay waa la iska daba hadlay hadal lasoo dhisay oo la isku dubarsiday oo beerkii wadnaha kaala baxayo ayaa rasuulka dushiisa rasuulka warkii waa asiray runuu mooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka go-aansaday beri inuu yahuudkii gacanta ka goy ilaah ma joogo subxaanahu caza wajal aayaadkaana yimid kolka waxaad aayaadka arki doontaan nabiga canaan lagu bilaabay qur-aankan waxaa lagugu soo dejiyey inaad cadaalad wax ku maamushid iska ilaali kuwaan oo kale waxaa nabiga canaantiisii la gaarsiiyey in la yihi wastakfir illah damcii qalbiga aada damacda inaad yahuudkaas ciqaabto tuugtan iyo munaafiqiintana warkooda aada ku qanacday ilaah uga toobadkeen kolkii nabiga aada loola hadlayna qoladii miratay oo ninkan tuuga ee munaafiqa walaalihii ayaa laga hadlay shareecada islaamka cadaaladeeda balaaray waxa ay shareecada huftay yahuudkii ninkii iimaan sheeganayay iyo wixii waa laisla baabi'iyey kolka waa qisa maliixa aada u macaan qaala tacaala ilaah wuxuu yihi inaa anaga eebaa ayaa anzalnaa dejinay ilayka adiga rasuulka muxameda alkitaaba qur-aan aan kuu dejinay bilxaqi runaan qur-aanka la dejinay qur-aanka dadna kama leexanayo dadna kuma leexanayo cidma dheeraynayo cidna ma soo dhaweynayo xaq toosan wey waxa lagugu dejiyey waa maxay xanaanta nabiga ku dhacday arag litaxkuma inaad garnaqdid bayna annaasi dadka dhexdiisa bima araaka allahu wixii ilaah ku baro qur-aanka laa bilcaatifa inaad weyraxdo ood caatifi iyo war qaadataa ma aha
wixii ilaah ku baray kolka arag inayan banaanayn waxaan qur-aanka ahayn iyo sunnadaa bayaanisay wax in lagu xukmiyo oo dad lagu maamulaa ma banaano bimaaki inaad ku xukunto dadka araaka allahu aclamaka allahu eebba ku baree kugu dejiyey amaa yahuudkii intaan la gaarin munaafiqii tuugga ahaa waxaa nabiga ku dhacay arag walaa takun suubane ha ahaanin lilkhaa'iniina tuugta naftoodii dhagraysa oo ficmiya walaalihii khasiman mid u doodo kolka tanna waa arrin kale inayan kuu banaanayn inaad beenaala mujrima gafa wiilkaaga hadduu yahay walaalka hadduu yahay waalidka hadduu yahay isla suuradda akhirkeed ay ku iman doontaa inaad garab joogsatid dhaalim kuma banaan diinta islaamka maxay guddoomisay unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman walaalka hadduu gar daran yahay hadduu gar leeyahayba gacan qabo hadduu gar daran yahay asxaabta waxay yidhaahdeen hadduu gar leeyahay waxa dulmaaya aan ka reebno fa kayfa ansuruhu idaa kaana dhaaliman kolkuu gar daran yahay rasuulka wuxuu taxjizuhu cani dulmi fa ina hadaa nasruhu dulmigaan iyo gardaradu wata guntiga ka qabo war meel fariisa balaa yeelana tanaa u gargaar walaa takun suubana ha noqonin lilkhaa'iniina tuugta khasiiman mid u dooda wastakfir illah maylkii qalbiga iilashadii aada u iilatay inay kuwaana run sheegaayiin yahuudkana aad gacanta ka goyso haddii ilaah u noqo wastakfir illah ilaah dambi dhaaf ka bari in allaha eebe kaana wuxuu noqday wamaa zaala uusan ka suulin kafuuran la dambi dhaafo raxiima naxariis mar labaad walaa tujaadil rasuul allow hadoodin can iladiina kuwii xaggooda yakhtaanuuna anfusahum waa tucmiyo walaalihii naftoodii bay khayaaneen oo markay nin berii ah ay nabayaan ay hagagayaan waa yahuudkii daalimna ku hagooganayaan naftoodii bay khayaanayaan walaa yaxiiqu lmakruusayu ilaa biahlihi waana kuwaan ka shifmay ee adduunkiina ku eedoobay aakhirana cadaab galabsaday walaa tujaadil rasuul allow hadoodin can iladiina wixii xaggooda yakhtaanuuna dhagraayay anfusahum naftooda waxaadna ogaataa in allaha eebbaweyne laa yuxibu ma rabo man ruux kaana ahaaday khawaanan dhagargal badane afiiman dembigal badan waxaa loo gudbay qoladii habeenkii gaarka u tashatay sida ilaahay shafarta oo geli arag yastakfuuna ficmiya walaalihii way isqarinayaan min annaas oo habeenka markii shirqoolkan la samaynayey suubanaha beenta lagu qanciyey lasoo dhisaayey si aan loo ogaanin beledkii waa laga baxay duuraa la tegay xagna waa laiska waardiyeynayey xagna beenaa laisku dhiindhiiminayey kolkaasaa rabbi yastakfuuna way isqarinayaan min annaasi dadka walaa yastakfuun ma iska qarin karaan min allaahi eebbaweyne wahuwa ilaah macahum ayaguu la joogay id yubayituuna hortay ku miranayeen ma hadal usan laa yardaa eebba raalli ka ahayn min alqawli eraya wa kaana allahu eebba wuxuu noqday wamaa zaal bimaa yacmaluun ninkan iyo dadkiisii waxay sal iyo daba samaynayeen muxiidan rabbi kooba sidaan markii loo sheegay iyagii in lala socdo xanaanta iyagii loo jeedi arag waxaa ilaah yidhi subxaana haa hooyay antum adinka tuugaan munaafiqa ah walaalihiisiiyow haa-ulaahi yaa haa-ulaahi kuwiinaanow jaadaltum waa doodeen canhum tuugadii iyo munaafiqiintii filxayaati nolol gudaheed addunyaa ee hoosaysay haddeer waa idinka daafacay ee ku hagoogtay ee beenta dhisay ee beri yeelay ee ninkii beriga ahaana nabay nabigana lugooyey ee faman ruux waa kuma yujaadilullah ilaah yaa la doodaya canhum munaafiqiinta iyo tuugada yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda ilaah qofkii la doodi lahaa ee kuwaan caymin lahaa intaa soo joogsado aman axad waa kuma yakuunu ahaan doona calayhim tuugada wakiilan ilaaliye gafafkoodii markii sidaa loo sheegayna tawbada loo fidiyey arag ilaah raxmadiisa bicibaadihi waman ruux yacmal sameeya suu-an dembi xun oo uu bani aadam ugu gafay aw yadlim nafsahu ama naftiisa keliyeetu dulmay uma ka gadaal yastakfirillah ilaah dembi dhaafid ka barya yajidillaaha eebuu helaa kafuuran inuu qofka u dhaafo raxiiman u naxariisto min arjay aayil qur'aani qur-aanka aayadihiisa kuwa loogu rajo badan yahay haddaad dambaabto
وتوبة نصوحة كنتو والتوبة تهدم ما قبلها تنبغي كوري أي بابينيس إياكي مركا قفكي أي قلاه إن قف بريئة وأن دنبي قليل لنبو لهاقاقو لنبت باديو اللقوها وقتارك ومن روحا يكسب شقا يستطيع موت إثما دنبي فإنما وحك لما يكسبه وحو دنبي هو شقيسي على نفسي سكور كذا وكان الله إبنا وحو نغضي وما زال حتى النبوسا كزولين عليما الله أقوم بدن دادكيسي أونكيسا حكيما معمول وناكسا أما قرد الكوحدة وحي سمعيا وما يكسب قفك قلب صدا خطيئة تنقف أو إثما دنبي وين ثم مركو أصدق دنبي قلي واصدين من كيالان يرمقنا به دنبي بريئا وفعليه أليهي ونقف كرين دنبي كوة رجية فقد وحدها احتمل إنه دوسوريتي بوتانا دنبيحون يو إثما قف مبينا اسكعدو انت هدين لقارسيي توقي إيا ولاله صوبنا سيد الله صلى الله عليه وسلم بدبادي اللي بدباديي يسوحي يمد وحا بانتا وكوكا إلها من كاس بريء يهود كان قعنتو كقوين لها إلى وحو يري سبحانه ولولا فضل الله إلى داغي هدايا جيرين عليك هذه الرسولك كورك هذا وفضلك سكبدي إيا والرحمة نحريست هذه بكون نحريستي بالنبوة والرسالة والاستقامة والإسمة والوحي نبي انتو كاليجي والرسول كاليجي وكو إلاليي ووحي كبدجي يا ربي نحريستي إيا الداغبيسي بشهادة كبدي تاساد كبد بادي إلا همد وحيد معدي طائفة كوح منهم منافقين تكمدا أن يضلوك إلى كل مياه من مايان إلا أنفسهم نفتوا ذوحنا هين ويلميان ملئ وما يضرونك كمد بالكلام من شيء حبيرات انت إلا قدباتا كما قيسان كرام لماذا وحيا كوكو قيسان كريم وأنزل الله إلى باب الدجية عليك هذه الرسول كاكوركا الكتاب قرآن باب اللقوق الدجية إسال لقول لقوين كرا والحكمة سنة باب اللقوق الدجية سيدا اللقوق بسين كرا وعلمك وحوم إباها كبري ما وحدا لم تكن هروا هانجرين تعلموا مديقان ووجدك الله فأداؤك لو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحدا أغين أيال لقو بري سيال لقو خلد كرام وكان وحو النغضي فضل الله إلى داغيسا عليك أذيك الرسول كاكوركا عظيما مدوي أبال شاكدو بدبادي النبي قال بدبادي حقين الله فيي لقى قاري النبي يا سيدة لوغو أبال شاكتي تبادل مركي آيات كان يمادين ورتيجي وادونتين وواحدين أساقي وحالي يفلكم ملا مدينة بريبا قعنت اللقاء قوينة يذكر عيبو بيسا إساقا تقمش أول منافق بوها واحد دوبي مكوت بيكولك مكا الله وراشدو بيا كسوبتي هبين كيبا وايسكا قوري مكو آذي مكو يميد مكا مركو يمحو يقانا وكسا قيسانا وانتو غني معاي أقل إسكا قبابو تعبان وقفتكم بالله بي كلكو مكا يميد كلكو حولا قفين دربقيا كل حي ماشي يكجر أولي إنا أنك إباء أنزلنا دجيني إليك هذه رسولك محمد الكتاب قرآن أنكو دجيني بالحق هم أن قرآن كلا دجيني لتحكم إن أدقر نغضب بين الناس ذاتك الحديثة بما قرآنك أراك الله إباك بري لا بما رأيت أنت عقلك ولا بالعاطفة ولا بالوجدان وحدك كلا قلنا ذي أما عاطفة مدنا مي بما كيباد وحكو حكمي أراك الله إباك بري ولا تكون هان بالخائنين لك الروياسة خصيما مدودودا واستغفر الله دمعي رأيك قلي إله الدنب الله في تكبري إن الله إبا كان وحون نغضي وما زال خدرنا وسن كزولين غفورا للطائفين انت توبتك انت الله لا في بدن رحيما بالمؤمنين انت الرميسين الله نحريص بدن ولا تجادلها دودين
can iladiina kuwii xaggooda yakhtaanuuna dhagraayay anfusahum naftooda in allaha eebbaweyne laa yuxibu ma jecla man ruux kaana ahaaday khawaanan dhagar badane asiiman dembigal badan yastakfuuna oo isqarinayaan tuugadiiyo munaafiqiinta min annaasi dadkay iska qariyaan walaa yastakfuun iskama qarin karaan min allaahi eebbaweyne wahuwa eebbana macahum iyaguba la jiraa id yubayituuna bicilmihi waqudratihi buu kula jiraa id goorta ay yubayituuna miranayaan maa gaf laa yardaa eebba uusan ka raalli ahayn min alqawli hadala oo kan beriyeelidiisii iyo kan hagagidiisii iyo rasuulka hanta foga tillaabsigiisii wakaana allahu eebba wuxuu noqday bimaa yacmaluun tuugadiiyo munaafiqiinta waxay samaynayaan muxiidan ilaa ku kooba cilman waqudratan haa hooyay antum adinka haa-ulaa'i kuwaan tuugada ahow yaadantum waad muranteen canhum tuugadii munaafiqiinta ahayd filxayaati nolol gudaheed baad ugu doodeen addunyaa hoosaysay ee faman axad waa kuma yujaadilullaha ee balla doodi doona canhum munaafiqiinta xaggooda qofka ka doodaya u jid bixinaya abukaata u noqon doonaa waa kuma yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda aman axad waa kuma yakuunu ahaan doona calayhim tuugada munaafiqiinta wakiilan ilaaliye waman ruuxa yacmal sameeya suu-an gafxun aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulma uma markuu labadaa midun galo yastakfirillaha ilaah dembi dhaafid ka barya yajidillaaha ilaah wuxuu helaa kafuuran lahu isagoo isaga u dhaafa raxiiman bihi u naxariista waman ruuxa yaksib galabsada isman dembi fa inamaa wax kale maaha yaksibuhu dembigaa wuxuu u galabsaday oo u baaba-aya calaa nafsihi isaga naftiisa korkeeda wakaana allaahu eebba wuxuu ahaaday wamaa zaal welina uu yahay dibna u ahaanaya caliiman rabbi addoomihiisa iyo xogtooda u aqoon badan xakiiman siduu u maamulayna ku murti badan waman ruuxa yaksib galabsada khadiicatan gaf aw isman dembi tuma ka gadaal yarmi gana bihi dembigu isagu galabsaday beri-an qofaanan dembigaa gelin ee ka beri-a faqad waxaa dhaba ixtamala dhabarka inuu ku qaaday buhtaanan dembi iyo wa isman gaf mubiinan cad walowlaa fadlullah eeqeeba haddayan jirin calayka adiga rasuulkaa korkaaga ahaatay iyo waraxmatuhu haddayan naxariis eeba jirin lahamad waxaabay damci lahayd daa'ifatun koox minhum munaafiqiinta kamida an yudiluuka xaqa inay kaa lumiyaan wamaa yudiluuna masa lumin karayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda ma ahaane wax kale ma lumin karaan wamaa yaduruunaka ku dhibi maayaan min shayin haba yaraatee waxay kugu dhibayaan ma jiro oo wayan ku dhibi karin sababkaan lagu dhibi karinna waxaa weeye waanzala allahu eebaaba dejiyey calayka adiga korkaaga alkitaaba qur-aan wax walba kuu sheego ayaaba eebba kugu dejiyey see lagu khaldi karaya waxyigii baaba kuu imanaya waalxikmata murti oo qur-aankii oo la garto iyo sunnadii lagu bayaaninayay baaba alla kugu dejiyey sidee lagu khaldi karaa wacallamaka eebba wuxuu ku baray maa diin lam takun hore aadan u ahaan jirin taclamuu mid yaqaan wakaana fadlullah alla dhaqaalkii wuxuu ahaaday calayka korkaaga cadiiman mid ku weyn wallahu aclam.